بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن ومدى الصومالي ميل كستي جوجان waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa marka inaan ka hadlo cudurkan adduunka ku faafay ee loo yaqaan coronavirus oo saameeyay dalal badan iyo dad badan waxaan ognahay community-da Soomaaliyeed ama jaaliyadaha Soomaaliyeed dibadaha ku nool qaarkood inuu saameeyay qaar kamid ahna ay dhinteen ku dhinteen cudurkan qaar kamid ahna isbitaalada u yaalaan kuwa dhintay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu siin naxariistiisa jannadiisa eheladoodiina samir iimaan ka siiyo kuwa xanuunsan oo isbitaalada ku jirana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu si degdeg ah uga kiciyo waxaan ugu maqaala ah ra'iisul wasaarihii hore Mudane Nuur Cadde inuu hadda u xanuunsan yahay isbitaalna u yaalo cudurkan Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ma uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo kuwa kale oo Soomaaliya iyaguna xanuunsanna inuu Ilaahay ka kiciyo si dhaqsi ah uga kiciyo cudurkan waxaa la xaqiijiyay inuu Soomaaliya soo gaaray 3 qofna uu ku dhacay waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa 3 qof inuu Ilaahay si degdeg uga kiciyo waxaan aaminsanahay oo aan rabnaa inaan soo dardaaranno ama isfarno ka daba tagiisa waxa ka wanaagsan ka hortagiisa waxa ugu horeeya dadku inay nadaafadda ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan mar walbaba arinta labaad oo looga hortagi karo cudurkan wuxuu yahay in la kala durugsan yahay marka la wada joogo uu jiro space ama distance uu jiro si looga hortago in la isku daarto cudurkan faafa waxyaabaha keena waxa kamid ah marka la isu dhow yahay dadka neeftooda inay isgaarto in la isku qofaco ama la isku hintiso marka taasaa loo baahan yahay dadku inay kala durugsan yihiin oo space jiro tan saddexaad oo muhiimka waxay tahay haddii qofku uu kari karo inuu gurigiisa joogo uusan ka soo bixin hooygiisu ka soo bixin waxyaabaha ugu badan oo la isqaadsiyo waxa way baabuurta la isla soo fuulo iyo meelaha mujtamacu isugu yimaado waxaan kale ka dardaarmayaa dadku inaysan isugu imaan meelaha lagu kulmo ama meelaha bulshada isugu timaado maxaa yeelay meelaha ugu badan oo dadku ay ku kala qaadaan waa isu imaanshaha iyo soo dhawaanshaha waxaan ugu baaqayaa ummadeena meel kasta ay joogaan inaan cududeena isu geenno awoodeena isu geenno aan u wada jirno aan u midowno sidii aan uga hortagi lahayn cudurkan faafitaankiisa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan ugu baaqayaa inay raacaan ama u hoggaansamaan awaamiirta caafimaad iyo badqabkooda oo ah inay joogaan guryahooda Ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan meel kasta ku faafay adduunka inuu Ilaahay ummadeena ka badbaadiyo